magaalada Buuhoodle ayaa waxaa ka soconaya gurmadka loo fidinayo dadkii ay dhibaatadu ka soo gaartay daadadkii dhawaan ku dhuftay magaalada Qardho. Faafahinta warkani waxa inoo soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Cadde. ayadoo lagu jira bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa qaar kamid ah dhalinyarada magaalada Buuhoodle ayaa wali waxay wadaan gurmad ballaaran oo lagu gurmanayo dadka daadadku ay ka buriyeen guryahooda magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar. qaar kamid ah dhalinyarada Buuhoodle oo la hadlay telefishinka caalamiga Kalson TV ayaa ganacsatada u diray baaq ku aadan in dadkaasi gurmad loo fidiyo. waxaan maanta ka bilownay magaalada gurmadka Qardho lagu gurmanayo sidoo kale waxaan anagoo kaashanana culimadii deegaanka maamulkii gobolka iyo degmada waxa aanu bulshada reer Buuhoodle ugu baaqanaa inay ka qayb qaataan gurmadka walaalahooda Qardho maadaama lagu jiro bishii barakeysneed ee Ramadaan oo qofku ajarka uu la baxo uu si laba jibaarmayo ama saddex jibaarmayo anagoo aan dhalinyarada Buuhoodle oo isu xilqaameynay walaalahooda Qardho garab siiyaan waxaan ka codsanaynaa inaad gacan iyo garab nagu siisaan shaqada aan hayno ee tabarucaadka ah oo ay ka mid yihiin waxaan ku wada dhalinyarada gobolka Cayn khaasatan magaalada waxaan ku wada Buuhoodle oo dhalinyarada ee ka jira waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha reer Buuhoodle haday tahay heer gobol culimadiin iyo waxaan ku wada masaajida aymadooda dadweynaha guud in hawshaas waxaan ku raahdaa ay ku garab istaagaan dhalinyaradaas isxaantay marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa dhalinyaradaas iyo waajibaadkaas culus ay naga qaadeen marka xigta bulshada Buuhoodle khaasatan ganacsatada iyo kambaniyada iyo shirkadaha waxaan dadka walaalaheena waxa lagu gurmanayaa insha Allah laga soo wada qayb qaato bulshada reer Buuhoodle waxay ku fiican yihiin Soomaalida kale kaga fiican yihiin waxa jira gurmadka dadka tabaalaysan ama dadka caqabadaadku la kulmaan intaas oo baan faray bulshada reer Buuhoodle hawshuna maalin iyo habeen way socotaa mar haday xaalad degdeg oo emergency timina waxa loo baahan yahay si dhaqso oo aan ka badnaan 3-4 bari in hawshaas lagu soo Xuseen Xasan Cadde telefishinka caalamiga Kalson TV.